Okay, سؤال لحد أو نمرنا. Question 6. Question 6 waxay ku leedahay Question 6 waxay ku leedahay find the area of the triangle below. Saddex xagalkan hoos ku yaala waxaa xisaabisaa badkiisa. Badka saddex xagal waxaa lagu siiyey dhinac tana dhinaca ida. Labada niyadaan ku hayno waxaa lagu siiyey triangle. Sidii aan isku dayna u sawirno triangle baa lagu siiyey. Anyway, xagasha konton iyo afar ka soo qaadnay tahay. Ka soo qaadnay way batayba. waxaa kuma jiraan cadkan halkan waa 8 halkanna waa 10 centimeter bay kulli ku wada cabiran yihiin centimeter waxaan la siiyey sidoo kale sin konton iyo afar inay la mid tahay 0.8 ay la mid tahay la siiyey sin konton iyo afar ay la mid tahay okay bedka xisaabi baan la yiri bedka triangle maxaa lagu helaa area for triangle waxaa la mid tahay half lagu dhuftay base kan hoose oo lagu dhuftay jooga sare joogi maanta ma haysano joog waa line-ka base-ka ku qotoma joog la yiraahdo waa khas aan ku qotoma waa shart aan ku qotoma xagal 9 ku yahay haddaba base-ka harmaana raadina soo raadina waxaan naqaanaa sin theta maanta sin theta waxaan waa 54 inay la mid tahay horjeedaha opposite-ka saddex xagalkii waa kana ka hadlayna ka yarka way sababta xagasha kuna waa tana horjeedihii oo ah maanta h baan u bixinaynaa horjeeda horjeedihii waan u bixinay h oo loo qabshay shakaal maanta waxa 10 wala inka ugu dheer h 10 keer soo baxaysa u fiirso h baan u baahanaa hadaba h waxay la mid tahay hadaba h waxay la mid tahay sin konton iyo afar oo lagu dhuftay 10 sin konton iyo afar waan damaanaa 10 lagu dhuftay sin konton iyo afar sin konton iyo afar waa 0.8 hadaba h waxay la mid tahay isku dhufaladaas waa 8 centimeter wax 10 keer soo aragtay hadaba area therefore area waxaan ogeynaa tahay half ph half lagu dhuftay base lagu dhuftay h base waan naqaanaa waa 8 dias nagu talana la siiyey h joogna waa 8 kale aan soo saarnay anagu inta isku dhufo waxa weeye 64 half ku dhufo waa 30 iyo 2 centimeter square area triangle ka soo saarnay su'aashan kugu xigta taas ana a ahayd baan maranaya a ana ahayd exactly way ahayd ba b baan ugu xigta isla su'aasha lixaad b deedana ugu xigta waxaan la weydiiyey proof the identity waxaad caddaysaa identity-ga sin theta cot theta cos theta sin theta lagu dhuftay cot theta inay la mid tahay cos theta intaas caddayna isla mid yihiin inay isla mid yihiin isku dhigmaan hadday calaamad su'aal baa hadda saaran adaa laga rabaa inaad caddaysid haddaba marka wax caddaynaysid xisaab kaliya ma ahan waa inaad ka bilowdaa wax horoo la isla yaqaanay oo aan asaga su'aali ka taagnayn xisaabtuna saas oo kale haddana meel ka bilaaban aan haysano xarg aan haysano hadduusan jirin meel lama gaari karayno waxyaabaha aan naqaano waxaa ka mid ah qof kasta arday kastana khasab ay tahay u yaqaano sababtoo ah trigonometry jinni madoobe tagay bilowgeeda lagu qaataa tan theta inay la mid tahay sin theta over cos theta oo qaacido khasab inay taqaanid wax kaloo khasab inay tahay inaad taqaanid inuu jira function cusub oo la tacriifiyey oo loo bixiyey cot saddexda asalka aan ahayn sin iyo cos iyo tan aan ahayn cot loo bixiyey ogo function cusub oo noocaas inuu jiro oo la yiraahdo oo u dhigma rogaalka tan theta labada hadda taqaano خلاص way iska caddahay inta kale hadda aan daynayna taa koraan ka bilaabaynaa tan theta inay la mid tahay sin theta over cos theta tan theta inay la mid tahay sin theta over cos theta okay meel kasta cos iga dhufo dhinacan cos ku dhufo labada cos soo baxay dhinacan cos ku dhufo wuxuu noqonayaa cos theta tan theta waxay la mid tahay sin theta meel kasta cos haddana meel kasta tan iga qayb
tan theta meel kasta ka qaybi tan theta labada tan bas la boodaysa halkan waxaa ku soo arasa cos saa uga faa'iidaysto meeshaan khalday cos theta waxay la mid tahay sin theta over tan theta waxaan u qori karaa inaan dhaho sin theta lagu dhuftay 1 over 1 over meterku isbacdo 1 over tan theta waxaan dhihi karaa 1 over tan theta iyay la mid tahay hadday tan soo barno wax cid ay la mid tahay 1 over tan theta waxay la mid tahay cos theta ku bedelo marka cos theta ya allah cos theta wuxuu la mid yahay sin theta halkaa theta aan ka boodnay cot theta meesha cot ku bedelo 1 over tan theta cot theta u dhigmaa khalaas wayna caddahay waa intaan kuu sheegay waa intii nala weydiiyey cos theta waxay la mid tahay sin theta cot theta waa intii nala weydiiyey khalaas proved waan caddayna su-aasha inoo xogta qalinka aan madowgeena u rogano su-aasha inoo xogta waa su-aal statistics ah waa su-aal ihtimaalaad ah ihtimaalaad yaan dhihinay tirakoob okay using the cumulative frequency graph adoo adeegsanaya graphka cumulative frequency-ga estimate waxaad qiyaastaa xagee u socda waxaad qiyaastaa a the lower quartile b the median c the upper quartile d calculate the interquartile range afar waxaa la weydiiyey graphka la weydiiyey waana taqriiban 5 darajo lower quartile baan la weydiiyey kow waxaan u baahanaanaa dib ugu laabano cumulative frequency waa maxay hadda waxaana la siiyey graph la yiraahdo cumulative frequency iyo heights eraradii waa dherarkii halkaana waa cumulative frequency meesha ugu sareysa cumulative frequency waa 80 waxaan u kala qaybaa 12 iskala miya okay cumulative frequency waa maxay cumulative frequency waxa weeye frequency-ga hore oo la isku soo dardaray dhammaantood haddiina la yiraahdo tusaale ahaan oo kale halka 150 ka bilow dad qof yahay 150 dherarkooda dhowr qof oo ay tahay 160 dhowr qof oo ay tahay 170 saas kuwa ilaahay gaarsiis 180 192 mitir saas kuwa haddaba cumulative frequency-ga 170 ku aad 160 ku aadan waxa weeye cumulative frequency-ga ku aadan 160 tusaale ahaan oo kale waxa weeye dadka ka hooseeya dhan la isku dardaray tusaale ahaan 5 qof waxay tahay dherarkooda 150 laba qofna waxay tahay 100 laba qofna waxay tahay 160 sidaa darteed cumulative frequency 160 wuxuu noqonayaa 5 lagu daray 7 ku aadamaysa ka soo qaado kale haddaba cumulative frequency waxa weeye shayga ka hadlayso frequency-giisa iyo frequency-ga kuwa ka horeeyo ka yaryar oo dhan dhammaantood la isku dardaray arana wax waadax ma jirin baa filaya sababta cumulative frequency waa 10 dhammaystiran anyway taasana la siiyey xogta waana naqaanaa marka xogta labaad waana naqaanaa inay tahay waxaana la siiyey haddaan 4 meelood u kala qaybino 4 meelood isleeg 4 meelood isleeg oo la qaybiyo taqriiban sidaas cadka koowaad dhamaadkiisa xogta cadka koowaad dhamaadkiisa waxa uu bixinaynaa lower quartile rubaca hoose kan dhexan waxa uu bixinayaa median dhextaal dhexfur ka ugu sarreeyna waxa uu bixinayaa upper quartile cadka sare rubaca sare baa u bixinaya haddaba intaasana la weydiiyey saddexana la weydiiyey su-aasha koowaad waxaana la weydiiyey lower quartile upper quartile su-aasha ugu dambeysana upper quartile su-aasha dhexana median nagee sawirkan ka garan wax kasta 80 xogta dhan totalku waa 80 afar rubacaad u kala qaybi waa 20 haddaba lower quartile rubaca hoose 20 buu leeyahay 20 dheerkee ku aadan 20 qofka 20aad ama qofka sanaan 21 taqriiban 21 iyo 20 qofka u dhaxeeya waa agas dheerkiisa sheeg exactly ma sheegi kartid sababta xogtan waxay ka timid classes group xog u urursanayd sanaan 160 ilaa 170 intaas oo qof ah qofkas intuu gaar yahay lagu ma sheegin laakiin hadda sawirkan ka qiyaas kartaa
haddaba waxaan dhahaynaa qofka labaatanaad lower quartile 20 baa ku aadan wuxuuna ku aadan yahay dherer ah 160 iyo wax 165 muu gaarin kala bar kuma aadamin wuxuu marayaa 163 iska dhama taqriiban haddaba a waxaan dhahaynaa lower quartile waa 163 b waxaana la weydiiyey median bartamaha qofka bartamaha jooga dhererkiisu waa meeqa qofka ugu dhexdhexeeya xogtan dhexda ku jira xogta totalkooda 80 bartamaha 40 baa jooga ama 40 iyo 40 ka dhexdooda iska 40 taqriiban haddaba 40 dhererkiisu waxa weeye 170 muu gaarin 165 ugu dhaafay 168 iska dhama taqriiban sida sawirka muuqata 169 xitaa dhexda ka khadmayso ama 168 bar aad ha u fogaan wax macquul ah sheeg 168 su'aasha xogta waxaan la weydiiyey upper quartile rubac sare waxaa jooga 60 sababtoo ah rubaca koowaad waa 20 barku waa 40 60 baa rubac sare meesha ka bilaabmado rubaca ugu dambeeya ku bilaabmado ama rubaca saddexaad meesha ku dhamaado upper quartile waa kaas anyway 60 yaa jooga 60 yaa ku aadan dherer meeqa leh qofka 60aad ama qofka 61aad waa qof 175 muu gaarin 170 uu dhaafay 174 iska dhahno 174 sababtoo xoga shantu aad ugu dhow yahay 174 174 su'aasha d waxaan la weydiiyey waxa la yiraahdo interquartile range waxayna la mid tahay upper quartile oo laga jaray lower quartile bilowga statistics waxa ku jira wax la yiraahdo range waa ku jira waa wax lagu qiyaaso cabir lagu qiyaaso xogtaadu say u kala fog tahay inta isku jirto taqriiban range-gu waxa weeye tirada ugu weyn oo laga jaray tirada ugu yar laakiin marar badan range-gu ma qiyaasayo wax saxda ah xogta saxda kama tarjumayo xog wuxuu ku siinaya macluumaad qaldan buu ku siinaya oo aan ka tarjumayn xogta meesha taala sababta maxaa keenay sababta waxaa keenaya waxaa laga yaabaa xogta inay xogta yar tahay tusaale kale 1 3 2 5 anay tahay kan ugu dambeeya ugu weyn laakiin uu 99 u boodo hal mar u boodo sidaa darteed waxay noqonaysaa range wuxuu noqonayaa 99 laga jaray 98 taamnada waxay ku waxyoonaysaa 98 xogtaadu inay aad u kala fog tahay xogtaadu aad uma kala foga ee ka ugu dambeeya wareeray oo meel aad u weyn u booday sidaa darteed marar badan range faa'iido ma leh sidaa darteed waxaa la isticmaalayaa upper quartile range isna taqriiban wixii uu ka tarjumaya xogta say u kala sarsayso wax lagu qiyaaso weeye say u kala fog tahay yani okay waa upper quartile oo 170 iyo aan soo saarnay hadda meeqa 174 oo laga jaray lower quartile oo aan soo saarnay 163 kala jar intaas waa 11 wallahu a'lam su'aasha ku xogto 8aad su'aasha maxay ahayd 7 su'aasha 7 bay ahayd kuma aan qorin 7 bay ahayd su'aasha 8aad a bag contains 7 blue and 5 red marbles boorsa waxay ka kooban tahay 12 marble oo 7 tahay blue 5 tahay red laba waxaa looga doortay adaa ka doortay laba at random waxaan looga doortay qaab nasiib ah without replacement adoona ku celinayn tii hore oo qaadatay marka tan labaad qaadanaysay mid baa qaadatay meel baa dhigatay kuma celin without replacement way mid labaad baa dana soo qaadatay waxaan waxa ku qaadatay random nasiib indhaha ku xirnaa yani maad fiirinayn kow number 2 diagramka dhamaystir caada u qoranaa tan dhamaystiran su'aashaas waxay ahayd 8 todobay ahayd statisticska tan labaad diagramka dhamaystirayna waxaan la siiyay diagramkan line-kan wuxuu ka tarjumayaa marka koowaad in red la qaato line-kan wuxuu ka tarjumayaa line marka koowaad in blue la qaato line-kan wuxuu ka tarjumayaa marka koowaad adoo red soo qaatay haddana ana red labaad qaadatid line-kan wuxuu ka tarjumayaa marka koowaad adoo red soo qaatay mar labaadkana blue qaadatid line-kan wuxuu ka tarjumayaa adoo blue ana blue qaadatay marka koowaad haddana line-kan wuxuu ka tarjumayaa adoo marka koowaad blue qaatay mar labaadkana red qaadatid ka ugu dambeeyana wuxuu ka tarjumayaa ana
blue blue labada ay noqdaan dhamaystir baan la yiri markood inaad red qaadatid waxa weeye totalkii 12 wax meesha ku jiro dhan intee red ah markood inaad red qaadatid intee red ah 5 baa red ahay marka labaad isla red inaad qaadatid waa meeqa mar labaad kana red qaadatid total kortu uu yahay sababta mid hore ka saartay ma aan soo celin mid ka baxayna waa mid red ah sababta line-kan wuxuu sheegayaa line red ah mid red uu sheegaya saddex waa afar meesha afar baa ku harsanaa red ka dhan afar loo sii hoyto blue go group adoo markii koowaad red qaatay good qaatay waa maxay ihtimaalka mar labaad inaad blue qaadatid marka labaad inaad blue qaadatid total kortu waa 12 sababta mid hore baxay oo red ah blue waa intiisii todoodiisii weey waxa hore baxay red buu ahaa line-kan usoo gudub line-kan wuxuu ku tajinayaa marka koowaad inaad blue qaadatid marka koowaad waa meeqa waa 12 total ah iyo 7 blue ah 12 meelaad 7 way ihtimaalkan inaad marka koowaad blue qaadatid adoo okay how lugan tiradan ka hartay groupkeedii sawirka lama socoto anyway sana aan qadaajimo isku dayna adoo marka koowaad blue qaatay waa maxay ihtimaalka inaad mar labaad red qaadatid total korti isma bedelin waxa ka wada total ku isbedel 12 moonood laakiin red ka isma bedelin wixii hore la qaatay blue buu ahaa markaan sadarta red ku shantiisi adoo maxay markii hore ihtimaalka inaad blue qaadatay mar labaad kana blue qaadatay total ku waxa weeye 12 blue horaana baxay sadarta waa 6 12 meelaad 6 weeye okay laba meelood buuxinay laba meelood baa ana buuxinay 6 loo stigay 12 to loo stigay 12 su'aasha labaadna la weydiiyay b waxaana la yiri waxa sheegtaa find the probability that the two marbles are the same color waxa sheegtaa ihtimaalka labada marble inay isku color noqdaan soo saar inay isku color noqdaan yani imma inay red noqdaan red inay noqdaan laba gududan ay noqdaan iyo imma inay noqdaan blue ama laba blue wada qaadatay ama laba gududan wada qaadatay wax isdaba mar lagu ma ogola haddaba ihtimaalku waa maxay inay saa dhacdo ihtimaalka inay saa ku dhici karto waa maxay ihtimaalka inay saa dhacdo isku color ay noqdaan ihtimaalka probability of same color aan saa iskaga qoran saa iskaga soo gal ihtimaalka same color sida qoro same color ihtimaalka same color inay noqdaan the same color ana noqdaan waxa weeye waa ihtimaalka inay noqdaan red ana laba gududan noqdaan oo lagu daray ihtimaalka inay noqdaan laba blue haddaba mid kasta gaar aan soo xisaabino ihtimaalka red aan soo xisaabino line-kan waa line-ka sheegaya red gudud labada r baa ku taala bugu red caadi uu qoran r baan qortay waa line-ka sheegaya r haddaba ihtimaalka haddii laba dhacdo isku xigta ay jiraan aan saameyn horena isku lahayn aan toos iskula xiriirin يعني لا نعضو كلام مدح بنا ست سنة واحد الصبح يأذون كل هذنا قانس بالله أما سنة حرش مدح تورسيد واحد رايسا ولا نعضو احتمال الله يلو سكول فطي هذا واحد ولا نعضو مركو أنا قاعد مرة أنا قاعد بين سادر واحد يا والله احتمال الله سكول فطي شان الله استقل الله يتون والله فطي كوي أفر الله استقل كوي تون والله ميدا لواتن الله استقل بقول صدن إيه لبو احتمال كأني بلو نقطنا واحد طبتي وكلوي وأسكت فشل الله وضعنا 7 lost جاي لبيتون أو لو قلفتين 6 lost جاي كويتون أو قدامين لميدا أسكت فلا سوا فرتين لو lost جاي بقول صدني لو هذا بقى أنا محل جربه احتمال كان أسكت كله نقطة ما جربه وريد وقدر بلو ريد واحد حسابي والله واتن lost جاي بقول صدني لو بلو نوع حسابي وحوي فرتين لو الله أصدقائي بقول صدن إيه لو أسكت صور أنت لو أنا شو صدر وصي هو أسكت متى متك قاضي بقول صدن لو كريهنا أسكت در ولحدن إيه لو هل كوجتي كرتا وحكسي قرحدن لكن ما دام احتمال هي سيد الله قرب بدنا حوينا تشبع عادي وقرتي لو هذاك رولتك السوق يبي حكوا 7 سنة تاي 0.4696 تقريبا 96 أصلا الغنس أوكي يعني واحتمال آد هاف وجدو إن الله سو كلا رهشين واحتمال هاف وجدو هاف بحير كيري هاي نس أوكي هل كسنا وحكوا
imtixaanka wada xisaabta Puntland insha Allah waxaan rajeynaa kuwa dhammaan casharaan hadduu eebba idmo nolosha noo daayo aad baan idin salaameynaa